salaamullaahi calaykum kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan warbaahiya meediya qodobada ugu waaweyn aad ku daawan doontaan warka warbaahiya meediya waxaa ka mid ah dil toogasho oo ka dhacay duulaadka magaalada muqdisho dowladda Soomaaliya oo jawaab degdeg ah ka bixisay eedaynta cusub ee dalka Kenya maxay dowladda Kenya u xirtay aqoonyahan Ibrahim Bursaliid ururka midowga Afrika oo xubinnimadii ka saaray dalka Suudaan iyo go'aan ka dhan ah dowladda oo looga dhawaaqay magaalada muqdisho markana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan halkaad warkaan ka daawanaysaan warbaahiya meediya fadlan subscribe saar channelka warbaahiya meediya deegaanka weedo ee duulaadka magaalada muqdisho ayaa waxaa ka dhacay dil loo geystay qof shacab ah meydka ayaana muddo halkaas yaalay marxuumka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Cali Warsame kaas oo ahaa wiil dhalinyaro oo darawal bajaajle ah wadada isagoo maraya ayaa waxaa gaari Cabdibilaa rasaas ku furay lama oga sababta loo dilay bajaajlahaasi balse dad goobjoogayaal ayaa sheegeen inay u badan tahay rasaas ciidanka dowladda dhexdooda isku furayeen inta badan dilalka ka dhaca magaalada muqdisho ee deegaanada ku dhaweey bajaajleyda loo geysto ma jirto cid loo soo qabto marka laga reebo nin dhawaan dilay darawal bajaajle kuna dhex dilay degmada Hodan agagaarka Tarabuunka ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa jawaab degdeg ah ka bixisay warbixin uu qoray wargeyska The Standard ee laga leeyahay dalka Kenya taasoo lagu sheegay in dowladda Soomaaliya deegaanadii ay sahminta shidaalka ka sameysay ay ugu darsatay deegaano ka tirsan Kenya wargeyska The Standard ayaa baahiyay wax uu ku sheegay xog ay baahisay wasaaradda batroolka Soomaaliya oo muujinaysa in 5 ka mid ah ceelasha shidaalka laga baarayay ay ku yaalaan soodida badeed biyaha ee dalka Kenya waxa uu sheegay wargeysku in wasaaradda batroolka Soomaaliya ay soo bandhigtay shidaal in laga baarayo 15 xirmo oo ku kala yaala Galmudug Hirshabeelle xeebaha Looma iyo sida hadalka u dhigtay dalka Kenya xirmooyinka shanta ee Kenya sheeganayso ayay ku kala sheegtay xirmada 189 190 204 218 iyo 219 sargaal ka tirsan wasaaradda macdanta iyo batroolka Soomaaliya oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in warkaas yahay mid been abuur ah ay dowladda Kenya soo abuurtay ma jirto meel ka tirsan dalka Kenya oo lagu soo daray warbixinta la xiriirta sahanka shidaalka ee soo saartay wasaaradda macdanta iyo batroolka xukuumadda Soomaaliya ayuu yiri Cabdiqaadir Abikar oo la hadlay warbaahinta wasaaradda ayaa cadeysay in sahanka shidaalka laga sameeyay Soomaaliya oo ku eegay xeebaha ku yaala koonfurta ilaa iyo bartamaha deegaanada Cabdiqaadir Abikar ayaa ka digay in bulshada lagu manhaabiyo warbixin sida uu warar ku dhigay kuwa been abuur ah Spectrum oo ah shirkadda sameysay sahanka shidaalka Soomaaliya ayaa horey u beenisay sheegashada dalka Kenya in dhulkeeda lagu soo daray sahanka shidaalka ee laga sameeyay Soomaaliya waxayna shirkadda si gaar ah u sii xustay xataa inaysan sahmin ku jirin aaga hadda lagu muransan yahay ee yaalo maxkamadda dambiyada caalamiga ee adduunka kulan degdeg ah oo ka dhacay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya waxa isugu yimid xubnaha ururkaasi iyagoo ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka Suudaan maamulka militariga ee dalka Suudaan ayaa laga soo sheegayaa inay hadda wajahayaan culays balaaran iyadoo laga saaray ururka midowga Afrika war-saxaafadeed ka soo baxay ururka AU-da ayaa loo sheegay in Suudaan ay ka maqnaan doonto baaliyiri ururkaasi inta xukunka ay hayaan militariga midowga Afrika waxay ka xumaadeen dadkii shacabka ee ciidamada militariga ay laayeen xilli ay banaanbax nabadeed ka dhigayeen toddobaadkan magaalada Khartoum ee caasimadda dalkaasi dowladda Suudaan hadda waxaa hogaamiyay Generaal Cabdifataax Burhaan kaasi oo la daaladhacaya bal in xaaladda ay dejiyaan saacado ka horna ay ku baaqeen wada hadal inay ogol yihiin hase ahaatee mucaaradka banaanbaxaya dhigaya waxay maanta oo Khamiis ah ka dhawaajiyeen inaysan wada hadal la geli doonin maamulka militariga ee dalka xukumiya wali ma jirto wax war ah oo ka soo baxay xukuumadda Khartoum oo looga hadlayo go'aanka ka soo baxay midowga Afrika oo looga saaray xubinnimadii dalka Suudaan ee ururkaasi kuwan ka dhacay maanta magaalada Muqdisho ayaa waxaa yeeshay qaar kamid ah waxgaradka beelaha dega gobolka Banaadir waxayna si kulul uga hadleen in Muqdisho la iska ilaaway oo xaqii gobolka Banaadirna la duudsiiyay ayna eedayn dusha uga tuurayaan dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo waxgaradka waxay sheegeen in magaalada si xamar la isku gudbi waayay ayna wax suurtagal ah wixii ka dambeeyana go'aan ku qaadanayaan in maamul gaar ah u sameystaan gobolka Banaadir oday ka mid ah kuwii soo xaadiray kulankaas ayaa wuxuu akhriyay war-saxaafadeed isagoona sheegay annagoo ah odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta waxgaradka aqoon-yahanada
علماء الدين dhalinyarada haweenka ee gobolka Banaadir waxaa noo suurta gashay in aan isugu wacno shir loo dhan yahay waxaana sababay in maanta la isugu yimaado shirkan sababtoodu ay tahay magaaladii oo loo kala qaybshay laba jid wadnaha kan waqooyi noord iyo kan koonfur south isu socodkii oo la xadiday isbitaaladii magaalada oo dhan oo ay ku yaalaan koonfurta jidka wadnaha dumarkii oo jidka ku umulooda gurmadka degdega oo la mamnuucay ciidamo aan tababar lahayn oo jidadka taagan oo lagu amray in ay qof kasto ku yiraahdaan kala wareeg waana astaan muujinaysa keligii talinimo dictatoriyad ayadoo loo marayo 2019 in xilligan keligii talisnimo lagu fikiro magaalada Muqdisho waxay sidaan tahay 3 bilood intaan ka badan sidaan looguma sii fiirsan karo gumaysiga uu shacabku ku jiro ku takrifal amar iyo shacab maxaabiis looga dhigay magaaladoodii anagoo ah golaha badbaadinta gobolka Banaadir waxaan go'aansanay in aan u istaagno shacabka Muqdisho oo aan u dhisno maamul goboleed loo yaqaano Banaadir State taasoo dastuurka inoo ogolaanayo maadaama aan anagu nahay shacabka oo waxaan go'aansano oo aan raboono anagoo u dhan ay cidna na hor istaagi karin haddii aan ogolaanayno go'doonka 3 bilood hadda waxaan ogolaan doonaa anagoo naga go'an maamul laga macbahay Banaadir State wabillahi tawfiiq halka aad warkan ka daawanaysanna waa warbaahiye media fadlan subscribe saar channelka warbaahiye media